maxamed xasan waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii maalgeliyey dagaalyahanadii u dagaalamayay xorriyadda Kenya ee dhaqdhaqaaqii midowga Afrika ee Kenya ee magaciisa loo soo gaabin jiray KAU iyo kacaankii wadaniga ahaa ee Mau Mau oo dib loogaga qabsanayay dhulkii Ingiriiska lagu deegaameeyay. halgankaasi ayaa soconayay sanadii kuntameeyadii waxaana markii dambe uu keenay xorriyadda Kenya. inkastoo kaalin weyn uu ku lahaa haddana taariikhda halgankii madaxbannaanida ee Kenya laguma xusin sababtoo ah waxa uu ahaa Soomaali. sida ay sheegeen taariikhyahanadu, Soomaalida hadda ku nool Kenya ayaa waxa lagu qiyaasay ilaa 2 milyan oo qof, waxaana laga fuquuqay bulshada kale kadib markii Kenya ay madaxbannaani ay heshay. waxaana sabab u ahaa dagaalkii Shifta War oo Soomaalidu ay doonayeen inay ku biiraan Soomaaliya sanadkii 1962 ka hor sanad madaxbannaanidii Kenya ayaa afti la qaaday Soomaalidii ku noolayd waqooyi bari waxa lagu weydiiyey inay ka sii mid ahaanayaan Kenya iyo inay ku biirayaan Soomaali weyn, waxaanay u codeeyeen inay ku biirayaan Soomaaliya. laakiin waxa diiday dowladaha Ingiriiska iyo Kenya. wadaniyiin Soomaaliya ayaa waxay doonayeen inay ka go'aan Kenya, waxaana ay qaateen hubka iyagoo ka hor yimid dowladda Kenya xataa iyadoo dagaalku u dhammaaday bishii Julaay ee sanadkii 1967 ayaa haddana ilaa hadda arrintani waxay saameyn ku leedahay xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya. sheekada dagaalyahankii xorriyadda ee maxamed xasan ayaa hadda si weyn looga doodaya kadib markii ay soo shaac-baxday warbixin dhammaystiran oo ka diyaariyey wargeyska Daily Nation. warbixinta ayaa waxa ay sheegtay in maxamed xasan uu caan ahaa sanadkii 1946 isagoo sawir kula jiray Jomo Kenyatta iyo saraakiishii KAU, waxaana uu ahaa nin si culus u maalgeliyey Kenyatta, waana Soomaaliga keliya ee la xidhay intii uu socday dagaalkii Mau Mau. waxaa si weyn u bartilmaameedsatay dowladdii gumaysiga, waxaana uu ku waayey ganacsigiisii iyo hantidii dagaalkii madaxbannaanida ee Kenya. laakiinse taariikhdiisa ayaa aasan ilaa hadda. maxamed xasan waxa uu dhashay sanadkii 1922 markii 16 jir uu ahaa ayaa waxa uu la wareegay ganacsigii aabihii kadib markii uu geeriyooday, waxaana uu ahaa ardayga keliya ee muslim ahaa ee wax ka baranayay dugsiga sare ee Alliance High School. laakiin waxbarashadiisa waxa carqaladeeyay dhimashadii aabihii iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ganacsado u dhashay dalka Sweden ayaa siiyay dhul uu ka dhistay dukaankiisii Chucha oo ka tirsan degmada Kiambi. dukaankaasi ayaa ahaa meel ay ku kulmi jireen jabhaddii Mau Mau, isla markaasi ardaydii ay dugsiga wada dhigan jireen. maxamed xasan ayaa waxay noqdeen hogaamiyaashii wadaniga ahaa, isaguna dhexda ayuu kaga jiray halgankii xornimo doonka ahaa sida ay sheegtay warbixinta ay diyaarisay jariidada Daily Nation. dukaankiisa oo ku yaalay Chucha ayaa kobcay kadib markii halkaasi ay soo degeen dad uu ka mid ahaa bilyaneerkii Mareykanka ahaa ee Sir William Northrop Macmillan. meesha uu ku yaalay dukaanka awgeed oo ahayd istiraatiiji ayaa dabayaaqadii sanadii 1940 iyo horaantii sanadii 1950 waxaa dhismaha dukaamaysigu uu lahaa makhaayad wax laga cuno hilib leh iyo kaali shidaal, waxaana uu lahaa 3 albaab oo mid ay ka soo gali jireen Yurubiyaanka la deegaameeyey, midna waxa ka soo gali jiray Eeshiyaanka, ka kalena waxa ka soo gali jiray Afrikaanka sida ay sheegtay warbixinta wargeyska Daily Nation. dukaanka maxamed xasan ayaa ahaa meel ay soo booqdaan Kenyatta iyo taageerayaashiisa sanadii 1940 iyo sanadii 1950 waxaana uu ololeyn jiray inuu xoojiyo KAU oo ahaa dhaqdhaqaaq wadani ahaa. Kenyatta oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ayaa booqday si lacag uga soo qaato, waxaana maxamed xasan uu ka mid ahaa dadkii dhaqaalahaan taageeri jiray Kenyatta. laakiin markii Kenya lagaga dhawaaqay xaalad degdega sanadkii 1952 ee mucaaradkii Mau Mau ay ka hor yimaadeen gumaystihii Ingiriiska ayaa dukaankii maxamed xasan waxa amar lagu bixiyay in la xidho, waxaana loo arkayay inuu si qarsoodiyo u taageerayay Mau Mau. dhammaan dukaamadii ay lahaayeen dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Kikuyu, Embu iyo Meru ee ku yaalay wadada Thika Road ayaa la xidhay, waxaana amar gumaystuhu uu soo saaray loogu dan lahaa hantidii maxamed xasan bishii Julaay sanadkii 1954. isla sanadkaasi ayaa dowladdii gumaystuhu waxay xidhay maxamed, waxaana laga qaaday shatigiisii ganacsiga. dhowr jeer ayuu isku dayay inuu soo ceshado dukaankiisii, laakiin waxa xoog kula wareegay dadkii daacadda u ahaa gumaysiga iyo ganacsato kale, waxaana wakhtigaasi soconayay howlgalkii ka dhanka ahaa Mau Mau. dhowr jeer ayuu isku dayay inuu helay dukaankiisii iyo liisankii ganacsi, laakiin waxa lagu tilmaamay inuu ahaa dhiigyacab ka tirsanaa Mau Mau. ninka Soomaaliga ayaa lagu khasbay inuu xidho dukaankiisa, waxaana qabsaday ganacsato Hindiya kadib madaxbannaanidii sanadkii 2017 ayaa mar wargeyska Daily
Daily Nation waxa uu weydiiyey gabadh uu dhalay oo la yiraahdo Aamina Maxamed in dukaanka iyagu ay leeyihiin iyo in kale waxaanay sheegtay inaanay garanaynin iyagu ay leeyihiin ilaa hadda laakiin hooyadeed oo dhimatay ayaa u sheegtay in dukaankii aabaheed uu ka tagay ay qaateen dad kale inkastoo dukaankaasi uu yahay halgankii taariikhda ee jinsiyadaha kala duwanaa ee xilligii gumaysiga sidoo kalena waxa uu yahay kaalinta Soomaalidu ay kaga jireen halganka oo iska indhatireen xukuumadii kala dambeeyay Kenya Maxamed Xasan ayaa waxa uu geeriyooday sanadku markuu ahaa 1977 adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida